saaxiibayaal dhibaatooyinka ugu waaweyn ee wadanka ka dhaca waxaa ka mid ah weli waxa socda xadgudubka loo geysto dumarka iyo dadka kale ee nugul ee Soomaaliyeed. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago qiso xanuun badan oo aan jecelahay bal inta dhageysato inay dareento. qisadaas waxay ka hadlaysaa gabar yar oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo ku noolayd magaalada Muqdisho oo sida ay noo sheegi doonto ka warrami doonto dhibaatadii ka soo gaartay ama u geystay ninkeedii oo hore u qabi jiray oo ay sheegtay in markii uu ka dalbaday inay isku noqdaan ay ka diiday uu sababay inuu markaasi gacan u qaado oo uu rasaas ku furo. taasi way ka badbaaday laakiin weli waxay la nooshahay xanuunka iyo dhibaatada ka soo gaartay wixii dhacay. amal maxamed maxamuud waxay kaloo dhibano u tahay dhibaatooyinka ka dhacaya wadanka oo ay ka mid tahay qaraxyada dalka ka dhaco. waxay horay ugu weysay dhibaatooyinka wadanka ka jira hooyadeed. waxaan jecelahay bal inaan idin la wadaago qisada amal oo ay iyada afkeeda nooga sheekayso wixii soo maray marka la eego xaaladda guud ee wadanka. waxaa la qiyaasaa in Soomaalidu ay 3 xaaladood ay ku sugan yihiin oo lagu sheegay inay tahay 3 qolo oo dhibanayaal. qolada koobaad oo ah dhibanaha koobaad waa qofka ku dhintay dagaaladii sokeeye ama dhibaatooyinka qaraxyada iyo argagixisada ah ee ka dhacay wadanka Soomaaliya. dhibanaha labaad waxaa lagu sheegaa qof dhaawac ka soo gaaray laakiin ka badbaaday weligiina la nool dhibaatadii ka soo gaartay wadanka. dhibanaha saddexaadna waa qof jir ahaan caafimaad qaba laakiin maskax ahaan dhibaatada ka dhacday wadanka ay saameyn ku yeelatay. amal maxamed maxamuud ayaan kula kulmay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga oo aan ku suganahay waxaana bal ka wareysanayaa xaaladeeda. amal waa ka xumahay dhibka ku gaaray ilaahayna ku dhib yareeyo laakiin bal marka hore waxaan nooga warantaa sidee waxaan kugu dhaceen maxaad nooga sheegi kartaa dhibka ku gaaray? والله ما كمية أرتو لب كان حقيقي كستي ونينكي قبي عن لسوا رقمي عدنا كدب علف نكرجيه مركي دمبنا إن أولادي مركان أولادي مدة أيار عن جوجو ويدا هيا سكون نقنا مركان كديدا نوحيدا هيا أما هو يكون نقنيسا أما عنو جيجا السيني أما هو كدلا سدحاس وح كدحية ملهان مركا أولاد دول شوا هل عنو مياه هل ويلا وهايا هاي محاكي marka hore furinkeena waa isku dhacnay waan kala tagnay marka ku noqoshada maxaa sabab marka inuu ku yiraahdo waa isku noqonaynaa markii koowaad wuxuu yidhahay horta cunuga markaan dhalay wuxuu yidhahay waan isku noqonaynaa kadib waan ka diiday ilaa wuxuu yidhahay markii dambe xoogaa cunuga iga markuu aan ka diiday wiiga amse cunuga iga xanuunsaday istaal la galay istaalka markaan la galay 3 maalin markaan ku jiro gabar habartay la joogtay haba idaaday marka reerkiisa u sheeg wiilkii yaray naqasa ku dhagaya cunuga markaas waa wacay waa u sheegay wuxuu dhahay cunuga iikan oo kuugu tufaa ana ii diiday ana iga qarsatay waayahan dhahay waan soo baxay waxaan ku jira marka istaalka soos la dhahayo waan soo baxay meeshii madaxtooyada ugu imaaday meeshii shaqada waa u geeyay cunugii markaa irida aan istaagnay oo soo baxay banaanka u soo baxay cunuga qabsaday oo gudihii hore u la galay marka anina hooyo cunugeeda iska keentay ma ahaynin waan ka calool xumooday meesha taliyaala joogay gudaha hore u gudbay marka meesha waa la iga yaqaanay oo hore u joogi jiray oo ninka meesha ka shaqeynayay markii hore aan u gudbay oo hore aan u galay taliyaashii aan arkay waxaan dhahay cunugii iga soo qaatay iikan waa kuugu tufaa dhahay cunuga marka waa lala hadlay waxaa la dhahay cunugeeda si uu ii soo tuurto dhahay cunuga waxaa la dhahay gabadha cunugeeda ku soo tuurtay meel ka soo daba ordeene si cunugeeda sidii cunuga igu soo siiyay uu soo raaxo dhahay bajaajan saara waan soo baxnay barti gaari laga raacay marka imaan qorog ugu qabtay haddana wuxuu dhahay dhig cunuga madaxaaga u maqan saas miyaa dhahay cunuga waa u dhigay waa ka tagay xaafadeeda aan tagay waa dacweeyay ilaa heer maxkamadda isla kornay 2 maalin 2 habeen xabsi ku jiray marka xabsiga laga soo daayay oo galabti cunug maalin sabti iga qaatay sabtiga markuu iga qaatay isbuuc iga maqnaa isbuuci dambe maalinta ahayd oo 9aad aan la soo wacay cunugaaga soo doono cunug sida la igu soo siiyay asna sida xabsiga looga soo daayay isla markii uu soo wacay أنا بحرة سامية أنا جديدة سامية إلا اسكو نقنينا ساس مياه دايها ما بكو أقاني إنه قاعد إن شاء الله مال على إيجا قاعدتي إن أنا ماشي واحد ماشي كاغس وتجا أمرك وروي يالان مع سلام دلني إلى واحد لو إحنا عليه سيدي أنا وكو كلا مسلمين
maalinkii dambe oo soonkii dhamaadkiisii wuu ila soo hadlay wuu ila hadlay wuxuu dhahay cunuga dhar iidan ku siinaa soo doono dharkaas iida waayahaan dhahay marka habeenkii markaan wada hadalnay xoogaa waa heshiinay laakiin kumaan heshiin inaan isku laabano caadi u heshiinay cunugeygana inuu dhar iigu soo gado marka gaariyaa soo raacay gaarigu meesha ugu balamiyey intaana gaarin anaa haystay cunugeyga waxaad noo sheegtay cunuga in maxkamadan kusoo kala qaadanay maxkamadan ku siiyey markaan soo kala tagnay kadib uu ila hadlay uu dhahay animaa xabsi igeeneedaa animaa way dacweyneedaa ilaa ama cunugeyga isiine ama waa isku noqonayna ama waa ku dilaawo saas miyaan dhahay haa cunugaagii inshaalla meel cada iga qaadatay anina waxa kaaga soo tagaa meesha yaalaan dilna ilaa wax dilo wax noole iga leexo markaa taleefon uu soo wacay marar badan waa ku dhageystay misada ii soo diray maana uga jawaabin habeenkiyaas oo maalintaa dhaawacmaya habeenkeedii aan isla hadalnay waxaan ku heshiinay micnaha inuu cunugeyga dhar ii siinayo aan ka doonanayo laakiin isku noqosho kumaan heshiinin markii aan soo baxay maalintaas aan soo baxana gaarigu saarnaya soo raacay bartuun aan ku balansaneen maana gaarin aniga asaga gaariga markaan soo raacay shareeraa xirnaa taleefona ku hadlayay kursi iga horeeyo saarnaa maana ogeyn ani wuu soo jeestay wuu arkay ana waa arkay wuu isalaamay waa ka qaaday salaan seeto dhaha waan fiicanahay alxamdulilah markaa kadib wuu iga sii jeestay meesha taleefkayga soo dhacay taleefka markaan aan ku hadlaayo wax yar daqiiqad yar aan ku hadlaayo waxaa arkay ninka inta soo jeestay oo qoragii intii uula qabtay waa kula dhigo qoragii marka saantay aan dhahana xabadaha waa ugu yaalaan baas lagu qabtay haa gaari caasiyaa saarnaa gaarigii ummadii idil way iiga daateen aniga asibisa kusoo harnay marka meesha jakboontiya u dhawaay qofkii horta markaas iga badbaadiyey ma aqoonsan kara wejigiisa laakiin inuu askari ahaa oo nin raga ahaa codkiisa waan ka dareemayay oo qofkaasa iga qabtay kadib isbitaalka la igeeyey asine markaas oo qoroga ugula dhagaya dhaawac gaaray saa maqle oo xabadaha igu furay waxay uga dhacday asigana ku dhacday lugta meelahana uga dhacday marka isbitaalka ani la igeeya dhinaciis laga geeyay marka wuxuu ku jawaabay xaaskeyga ahayd xabada ulama aan dan lahayn waa iiga fakatay xabadii marka maalintaas kuwan oo madaxtooyada oo taliyaasha meesha ana way ogaayeen marka hore inuu saas yeelay ninka oo maxkamadna cunugeela igaga soo qaaday marka waxaa leeyahay waxa uu tala gashay soo bax ninka waa la wada xabsiga la geeyay markii dambana waa la soo daayabo iiran igala tashanin muxuu ka qaban jiray marka madaxtooyada mise weli wax buu ka qabtaa weli wax buu ka qabtaa weli hadda dii la soo daayaa maqle shaqadiisu hore u galay uu shaqaysanaya yaa soo daayay reerka aan soo daayeen oo isla hadleen aan soo daayay marka markii uu dhaawac ku gaarsiiyay waa la xiray hal sano xirnaa maxkamad iyo cadaalad ma tagtay ma tageen maxkamad iyo cadaalad waxa maana tageen markii igu dambeysay oo la soo deenayay ani waxa lagu qasbay inaa warqad soo saxiixo oo la warqadaas maxay tahay warqad oo sii deenay ninkaas yaa ku qasbay horta qofka waalidkii ahaa waa aabahay waxa ma dhihi karo laakiin aabo xoogaa uu xanuunsan yahay marka sii daayaa leedahay ilaa hayaan dhahay fasax oo liigu qasbay raali kamaana ahayn markaan sii deenay ninkaas maxay tahay sharciga adiga kugu qasbay inaad saxiixdo oo aabaha wax u saxiixi waayo waalidkay hadduu ku dhahayo ama waan ku duceynaa ama waan ku inkaara ducada qaadanaysaa marka ani ducadii aan qaatay oo sidaas ku sii daayay ninkii waay marka waxaad iga sheekaysaa meeqa jir aad ninkan isku guursateen daadan waa imisa 15 sano jira markaan guursanayay yaa ku guuriyay aniga keensaday ninka waalidka u keentay waa liigu daray waay hadda meeqa jir aad tahay had 18 sano jira 15 sano ku guursaday madaxtooyada marka shaqadiisa maxay ahayd waardiyo ahaa ilaaliyaha madaxtooyada ka tirsan uu ahaa askari dawladeed waa ahaa ilaa haddana wuu yahay waay dad hore u dhibaato u gaarsiimay jirtay
maana maqlin hore kumaana maqlin balse hadda anoo maanta gaarsiiya marka asagoo ku dhaawacay hadda dowladda u shaqeeya oo madaxtooyada dowladda u shaqeeya wali madaxtooyada soo ilaaliya madaxweynaha ku sugan oo ilaalada madaxweynaha ilaaliyaha madaxweynaha oo kamid yahay waaye madaxweynaha markuu baxayo wuu raacaa baabuurta raacdo oo alborkeedu kamid yahay oo kasoo laabato waaye marka bal kulay waa baari doona laakiin ma fahmi karno nin sidaa u dhaqmaya oo dhibaatada ku geystay inuu lagu aamino amaanka madaxweynaha sax taas ayaaba wax kala ah laakiin waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo marka see marka xalka ku dambeeyay markii dhibku ku gaaray wallaahi rafaad badan waan soo maray reerkeyga ugu dadaalay inkastoo markii dambe tabar ay u dheeriday 3 bilood horta istaal keesanay waa maqashaa maleena istaalkaas aan 3 bilood aan waxba aan helin lugteedana dhacaamaysay 3daas bilood marka waxa la ii raadinayay istaal oo daaweyn karo macnaha wax la iigu qaban karo hadda marka mid oo Soomaali Suudaanis ay dhahayaan kaasa wuxuu dhahay lugta waxaan ka soo saarayaa lugtaagan calashaan oo ku soo canaysid marka alxamdulillah 7 qaliin aan maray oo mar walba marka 2 bilood marka joogo qaliin aan galay hadda markii ugu dambeeyay soonkii hadda waxa la dhahay socda la ii bilaabay marka 2 isbuuc camal aan soconayo lugta qoyaan ay kala weyga barartay markaas aan liigay dhakhtarka lagu celiyay 2 qaliina soonka kadib aan maray oo marna qoyaanka la iga bixinay marna bir la iga bixinay igu jirtay way bardama marka ma kulanteen ninkii dhibka ku gaarsiiyay ma kulmin mana isoo wicin mana aan arkin reerkiisa xataa markii xabsiga laga daayay ay ugu dambeysay seeta xataa ima soo dhihin way marka ninka wada cafisay seed ku cafisay wallaahi horta waxaan ku cafiyay mid koowaad shala horta waa la igu qasbay ana cafiskay koo aan sii deenay mid aniga oo qalbigay ka soo go'day meesha ahaanin tan hadda waalidkii waxa tii haddana waxay ahayd horta gudoomiyaheena shalay markii aan u tagay oo wuxuu ahay gudoomiyaha maaliyadda gudoomiyaha gobolka Banaadir waaye Ibrahim Dheere maxaa soo galay qadiyada aniga u tagay oo maama Jawaahir ay geeday oo ay dhahday wuxuu ahay taana ku caawinayo sida gobolka liigu geeyay gudoomiyaha ila kulansiisay codsiga u gudbistay dhibaatada si ugu dhacdo aan u sheegay marka wuxuu dhahay sharciga la horkeenayo gudoomiyaha hayi waay han dhahay fiisiyo ii soo saaray tikidkii ii dalbe baasaboorku ii sameeyay lacag pocket money uu ii siiyay marka wax badan oo ii qabtay habeenkii maalintii iigu dambeysay habeenkeedan soo baxay wuxuu dhahay amalay iska cafininka waayaan dhahay marka gudoomiye waayo qofka haduu wax ku qabtay iska cafiga muxuu la jeeday ma niyad wanaag uu la jeeday oo macnaha dawladeeda wax ii qabatay hay'ado sida ku cafiyo dhahay amalay dawladda wax ii qabatay marka ninka sidaas ku cafiyo hayi waayaan dhahay marka waxa is dhahay qof ku dhahay dartiisa ha u cafinin ilaahay dartiis u cafi sidaas aan ku cafiyo hadana waxba uma qabo maxay tahay marka sababta laakiin gudoomiyaha ku xigeenka ee gobolka ee maaliyadda maxaa ka dhaxeeya ninka wax ku gaarsiiyay isaga wuxuu ku leeyahay waa cafi wallahi ma sheegi karo balse isku leeyihiin gaar maya aqoon inay isku leeyihiin ma hubo balse uma maleynayo inay aqoon isku leeyihiin marka si wanaag niyad wanaag ku leeyahay niyad wanaag laakiin ninkii maadaama uu madax yahay ninkii uu ka shaqeeyay marka ka horeedana waxa maqlay fiidiyowga koowaad oo la iga duubay inay kuwan oo madaxtooyada joogan inay ka soo hadleen sababta fiidiyowgaas loo deeyay maxaa waay ee dhaheen dood ka keeneen TV iga duubtay ee dhaheen wiilasha wariyaasha la hadlay marka aniga ila hadleen ay dhaheen saas ay dhaheen maxaa gabadhan dhibaataysan ee dhibkeeda sheeganaysa loo sii daayay yiraahdeen fiidiyowgaas anaga nagala tashan maxaa loo sii daayay oo naloo ceebeena calashaan saasay dhaheen qolada madaxtooyada ayaa kula soo hadlay qolada madaxtooyada dhaheen wariyaasha la hadleen aniga wariyaasha marka saas ugu dhaheen marka waxa is dhahay gudoomiyaha wuxuu saa ku dhahay ereygaas hore aad maqashay ay kan isku miisaan marka adigu dhib gaaray hadasho kadib ay dawladdu kula soo xiriirtay ku caawisay marka hadal kadib dawladda ay caawiday oo codsiga ku dhistay marka waxay dhibsadeen hadalkaagii
saasay ila tahay ku gaaray uu ku gaarsiiyay askari waayo wuxuu meeshuu joogo ka shaqeynayo waa meeshii madaxdii dhameed iskugu tagtay ay joogto ninkan wali waa sii shaqeynaya ninkan wali waa sii shaqeynaya maxaa dareemay ka cadaalad ahaan ma heshay cadaalad u baahnayd haddaad xitaa cafiso ninka waxay ahayd inuu cadaalada maro dawladda waa gooni aad waa cafin kartaa laakiin dawladdu ma cafin karto صح واي لكن dhibaatadan maanta geystay hadana dawladii ku dhex jiro u shaqeynayo walaa waa dhibaato waayo aniga mid ii geystay mid ka badan uu geysan karaa صح واي laakiin waxa rajeynaa inay iska dhex saari doonaan ugu dambeyn marka amaal ilaahay ku dhibiray xaaladda caafimaadka hadda meeshan Turkiga maxaad kala kulantay xaalka u siyaa والله الحمد لله balse rajada inta uu imaaday ee ahayd ee nuqteeda inay ilaamato ee fidsanto ee ahayd maana helin taas balse waxay dhaheen lugtaada biraha markii hore la soo galiyay ay kaaga ciyaaray oo micnaha waxyeelo badan u geystay waayo barne jilibka markii hore xabada igala baxsatay barka iga harana birihi iga dilay afishina qaade marka waxay dhaheen qaliin aan kugu sameeynaa hal jaanis haysata waana halkaas qaliin biraha laga saara jabkii oo micnaha ka haray jilibkana waa laga saara waayo lafta kale ka saameynaysa lugta iyadoo taagan 2 bil kadib oo ku soconaysa ilaa marka ma ka socdo xanuunka ka war ma ka seexataa ba habeenka xanuun baabiya una habeen alxamdulillah ilaahay uu karkaaray waxa ay sheegtay hooyada inaad ku weyday qarxiyada ka dhacay wadanka صح 2016 ahayd bish 9 dabadeeda ya hooyo nooga dhimatay maxaa ku dhacay hooyo subaxdii horta qof waxay ahayd ilmaheeda u shaqeysanayso oo ilmaheeda u soo shaqo tagtay waxay soo bixi jirtay gurigeeda ka soo tagi jirtay 9 saac habeenimo anaa la shaqeyn jiray 9 saac habeenimo ka soo tagayna guriga shaqada waxaan la ku tagi jirnay ilaa waxaan soo jirnay 12 salaada iyadoo la galay ama laga baxay aan tagi jirnay meesha ilaa maalintii oo dhan ka shaqeysan jirnay marka ciidana meesha imaan jiray oo ka cunteyn jiray qarxiya loogu duubay subaxdii dambe markay soo dheelmatay subax khamiis ahayd taariikhdana xaq beegneed 2016 ahayd bish 9 dabadeeda markay imaatay shaqadeeda soo shaqo gashay adi halka saac subaxnimo xilliga quraacda marka la joogo oo qarxi dhacay dad badan oo ku dhinteen oo ku dhaawacmeen hooyada anigana ku jirtay meesha ku dhintay ha ku jirtay ilaa naxariista hadda maxaad isleedahay iyaad isleedahay waxbay kula qaban karaan aad jeclaan lahayd inuu codkaaga gaaro walahi Soomaali Maxamed oo dhan meel walba joogan inay ii dadaalaan inta karaankooda wax ii qabtaan rajeenaa insha Allah ina soo duceeyaan way ilaahay caafimaad degdeg ah ku siiyo amaal maxamed maxamuud ayaa ahayd oo aan kula kulmay magaalada Istanbul wadanka Turkiga oo waraysigan gaarka aan ka qaadnay intaynu mar kale kulmi doono aniga iyada waxaan ku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo cidi doonaysa inay caawiso hadduu Allah awood u ogolaado waxay nambarkeeda tooska ka heli kartaa qaybta hoose ee shaashada nabadgelyo Somalida u hiilisay hanolaato